kusoo dhawaada barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. barnaamijkanna waxa martiigu Cali Maxamed Xaruuri oo isagu ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee daraasadaha ku sameeya af Soomaaliga iyo suugaantiisaba. Cali waxa uu degan yahay wadanka Holland, waxa aan ku kulannay magaalada Hargeysa. Cali waxa uu aaminsan yahay in mahmaha Soomaalida qaarkood ay ku jiraan qaladaad waaweyn oo loona baahan yahay in la saxo. Cali mahmahu horta de waa qayb muhiim ah oo kamid ah luqad walba oo Soomaaligu dee taa waa la wadaaga. mahmahan aad sheegaysaa ee aad u aragtay qaladaad ku jiraan ma kuwii weligood la isticmaalayay way waa kuwii weligood la isticmaalayay laakiin aad moodo in sidii waa qori isku dhiib waxani way in sidii ay u socotay isbedel ku yimid waayo reer magaal baa la noqday erayo badan waxa laga yaabaa inay baadiyaha la xiriiraan oo baadiyaha ku hadhay way marka qofkii isagu meelahan soke ayuu ka eegayaa de uma noqon karayo maalan de geeli iyo xoolihii iyo wixii de ma wada hayo tusaale haddaan ka bixiyo mahmaada la yidhaahdo sidee xeedhana loo xagtaa ilkana ku nabadgala halkaa xeedhaa laga dhigay loo xagtaa ilkana ku nabadgala dad waxay yidhaahdeen sidee xeegana xeega ku noqota ilkana ku nabadgala marna waa xeegadii de ciyaarta ahayd ha midna waa xeedhadii midna waa xeedhadii wax lagu cunayay marka laakiin labada midna maaha way xeedho maaha xeegaduna tan magaalada maaha kelmaddu real waa xeego way xeega ku noqoto horta kani wuu bedelo xagashadii buu ka saaro xeega ku noqotaa buuri way ilkana ku nabadgala tan kalena sidee xeedho buuri loo xagtaa xeedhada lama xogto ilkaha dee loolama tago xeedhada saasaan filaya laakiin kelmaddu waa xeego horta way waa xeego xeegaduna waa geed xeega la yidhaha waxaa laga yaabaa inaanay dee meel walba ka bixina dee dhul gaara ayay ka baxday marka kelmaddii dhagihiisa qofka ku soo dhacday midna xeedhadan dee unbu ka dhigtay reer magaalkiina dee xeegadiiba ka dhigtay waa geed midho leh oo ilkaha loola taga waa la xagtaa waa sida cambalafka oo kale laakiin haddaad ilkaha ku sii dayso way dhaawacayaan waa la xaganaya waa geed la cuno laakiin ilkaha laga ilaashanaya sidee xeegana loo xagtaa ilkana ku nabadgalto laakiin xeedhada lama xagto xeegana xeega ku noqotaana waa reer magaalkuunbaa dee saa u bedelin way tusaalayaal kale maxaad inoo soo qaadi karaysaa waxaynu idhaahnaa maxaa kaaga 15 kelmaddaa horta bal 15kaa xaggay ka timid su-aasha maxaa kaaga 15 waa inkastoo mahmah reer magaal tahay mahmah reer magaal wey tahay qaar kaa galay oo kale wey waskijaagta bicdu horta waa caynkaa laakiin 15 karo muxuu yahay taas su-aasha waa taa way nin baa wuxuu what's the 15 for you war ingiriisi maaha ingiriiska ka timid bay yidhahdeen waxaa lagu yidhi iskuulkeenni halkana kowda July baa translation berigii ku yar sameeyo saa ka dhigaale marka 15 korta xagee ka socotaa waa isweydiin maalin baanoo iska meel soo galay baa lagu murmayay waa bal Cali weydiiyay Cali baa wax yara eegeege baarbaare war maxaa waxa lagu yiri maxaa kaaga 15 maxay tahay markiiba war isweydiiyay 15 xagee ka timid 15 ku wadayax 15naad waa maanta u caddahay waxa weeye dayuxu buuxo marka waxaan adeegsanayaa anigu waxa la yidhi gudcurku waa mugdi caddaa u mira dhaamaa dharaartaa ka macaan laakiin nin dhala waa u masay waa iskugu mid habeen iyo maal markaa nin sidan dee anigu markaa fikirkayga u cabiray nin dhalaa wuxuu yidhi war caawa ma 15 baa maxaa kaaga 15 dee haddaana dee ku arkaynba waa sida dhahay maxaa kaaga cabaya waa ninkaan xoolaha lahayn waxaa la yidhaha maxaa kaaga cabaya maxaa kugu jira horta waa maxaa kugu jira bimacna kelma way marka dee 15 kaas horta maxaa kaaga cabayna halkaas ka timid cabay dee roobka da'ayay waxaa ya waran ku helay aad geynaysa dee xoolaha ma haysatid marka waa maxaa kaaga 15 waa aragii
وطيحي وعدل لكن درارتي بأنا وحبا أركيب هاي مركا شن يتمن كرت وصدا مركا مهما ها قار بدن وصداس قارن اللي فهمسنين وايو كلمة هني هدان the words and their stories هدان شيء كده يدي لحين أنا بس وحي كسود دكتي معناه هو خلطمية عدي ترسل ما يقان سيكوس كتب for example وحلا يرادا تقوني ما دي من بيكوفانتا دي من شدي جيري على كده جيا تقوني ما دي من بيكوفانتا لكن دي ما شبيش موجود وحوي تقوني ما دي من ما ومان وعقلي تقوني مان دي من عقلي دي من مان دي من ها عقلي دي من بيكوفانتا ما مان دي منين ما هدي دبعتي جرامر كوجيرو كل مان دي منين بين نقول هذا الكاس وادمت مان دي من وي وتقوني عقلي دي من بيكوفانتا ويس حسن تايد وحي أي سميزي ساسن سبيدي إن كستو ساعة شيء laga yaabo mahmaha qaarkood inay waqtigiisa la bedelaan haddana calow khubarada luqadaha ku xeel dheeri waxay yiraahdaan wixii la isla ogol yahay ayuun baa sax marka adu waxaad leedahay waa in de laaxinka laga saaro meeya waxa weeyaan mararka qaarkood waxaad oranaysaa horta in kastoo ay saat hada imika inta aan ku sheegay sida loogu mahmaaho ee anigu aanu arkayo inaan ahayn sida haddana de waa qalad ka hirgalay laakiin waxay ka macna badan ka murti badanta sida ku soo baxday bay ka murti badanta kana macna weynti yani way fiicnayd in horta la baaro la isaguna raaco laakiin hadda kulli iyadoo aan la oran laga dhigin sharci haddana tay sida sheegayso taa wadada saamika la qaaday laakiin way fiican tahay in taa kalena lagu baraarugsanaado haddaan tu kale kugu daro waxaanu idhaahnaa maan rag waa mudacyo afkood soo saamayn waa jirtaa dee mudacyo afkood markaad weydiisatahay war siday ku yihiin qaar waxay igu yidhahdeen bal afka maxay ahayd afkaanaysa saarmayn iyo wax noocaas iskuma tegayaan micnihii oo saasaan ragga fikrigiisu isku tegayn bay dhahdaan anigu macnawi ima siinaysa laakiin waxaa aan maqlay waxay ku soo baxday maan rag waa mudacyo tumaal tumaalku maaha warshad isma wada leekisiin karo midba sibuu tumaya mudiciibuu mid buuran mid dhuuban mid waa kala duwan yihin isagu dee sidii warshadda ma soo wada saan kara says marka waa maan rag waa mudacyo tumaal kala duwanaanshaha ninba ilaahay soo abuuray caqligiisa markaa kala duwanaanshaha saasa ee wax laysku geegeynayo xafka laysku saaraya meesha kuma jiraan haddii aad ku nooshahay magaalada Nairobi ma og tahay shirkadda Faras Taxi inay macaamiisheeda siiso qiimo dhimis aad u ballaaran sidoo kale shirkadda Faras Taxi waxa ay ku soo celinaysaa 10% lacagtaada trip walba aad qaadato lacagtaasi oo ah Faras Miles waxa aad ka dhigan kartaa M-Pesa kaarka ku hadalka ama internet haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka imisa mahmahood oo saasoo kala baad calow aad u ururaysa waxa kaloo jira duco iyo maxaa shifo iyo duco lagala qoysay baa la yiraahdaa saasaan filaya dadku yiraahdaan duco iyo shifo lagala qoysay laakiin saa ma ahayn shifo aamiin lagala qoysay marka ku duceeyaan ku raahdo ilaahay ku shifeeyo mahadsanid baa waraysa laakiin aamiin ma oranaysid marka waa shifo aamiin lagala qoysay ee duco lagala qoysay ma marka waxa weeye marka ku duceeyo dee aamiin weeyaan mahadsanid iyo kuma jirto marka shifo aamiin lagala qoysay haddaan su-aashaydii ku xeliyo imise mahmahood oo saasa baad ururaysa waa badan yihiin laakiin hadda imika maskaxda kuma haya haddaan mid yar kugu daro gari laba nin kama wada qoslisaa la yidhahda haddana waxaa la yidhahdaa leex jecel laba nin kama wada qosliso laakiin labaduba qosol maaha leex jecelo laba nin kama wada qoslo waa sax laakiin gari laba nin ma wada raacda wey kama wada qosol meesha kuma jiro waa mid bay raacaysa laakiin leex jecelada wuxuu yidhi ninkii laba nin baa wuxuu arka shafka saaray wuxuu yidhi leex jecelada dhex marin buu marka had iyo jeer maartay oo marka qosolkaasi xaguu ka yimid garay laba nin kama wada qosliso jeceladu ka yimid leex jecelo laba nin kama wada qosliso waxa gaar leex jecelada iyo mahmadku laakiin kelmadii unba kama wada laba nin tuunba la yar martayo
markaasuu baa la yidhi labadiiba de qosol ma wada gelaya laakiin calow miyaanay sidaa lafteeda noqon karayn oo gari laba nin kama wada qosliso dee nin unbaa helaya laakiin raacidda ka waadaxsan raacidda ayaa dee had iyo jeerna dee waxaa jirta mahmaahyuhu waxay kaga duwan yihiin senteniska caadiga ama suugaantu waa tix iyo tiraab sooma tiraabtu dee sida doonta haddii la waraaba waad odhan kartaa waraaba dhurwaa baad odhan kartaa laakiin tixdu sideeda loo soo celiyaa hadday tahay gabay hadday tahay mahmah waa tix marka in sideedii loo celiyo ayaa muhiima oo la yidhaahdo gari laba nin ma wada raacdo oo aan dee anigu tayda aanan ku cayooqina waa inaan halkeedii u celiya sharci bay leedahay taas waxaa iyadana jirta qarad hirgalay oo mahmahayaa maahee erayo for example haddaan ka soo qaato cagbacag waad maqash kabihi cag la yidhaha waa kabii jaangiriga la odhan jiray dee soomaalidu dhaqan ahaan xidhan jiray waa sida ay u yaqaanaan laakiin maaha waay kabuhu magac may lahayna kabuun bay ahaayeen markay isku cag walba la gelinayay kabaha la odhan jiray jaangirigaas kabuun bay ahayd waay laakiin kabahan cusub markay soo baxeen ee midba cagteedii la geliyey ayaa la yidhi cagba cag waa kuwanaad xidhantay imika magaciina wuxuu raacay kuwii hore dee dadkii waxyaalahan imika aan dee kala lahayn labada lugood kuwii hore may kala lahayn laakiin kuwan imikaa la yidhaha cagba cage waxoogaa dee sidaan u isticmaalayna ayaa mararka qaarkood bedelmaya laakiin cagba cag waxay ku soo baxeen kuwaas kabuun bay ahaayeen laakiin imika kuwan weeyaan cagba cag for example degme iyo gobol dee sida dawladdii hore waxa af soomaaliga qortay maaha siyaad bar iyo dee gobolkan iyo waxaan waa isticmaali jirnay laakiin si kalea loo isticmaali jiray markaa degme iyo gobol inagu imika sidan dee loo isticmaalo degmada yar haya laakiin degmadaa ka ballaadhan degmadayada degmadu waa wax ballaadhan maaha meel yar dee gobolkaa yar degmada iyadu waxay noqon karaysaa waa wax ballaadhan waa dhul haya gobolkaa yar gobol waa wax laga gooyey marka way isdhaafsan yihin waa qalad hirgalay waxaa kaloo jira kolon waxa la bulsho waxaa loo jira bulsho bia loola jira bulsho waa xagee ka timi ma hayee horta gabayadeedu warradii ma hayee bulsho waxa weeye waa lo'da iyo raacatada intaas sida kolonyada marka la waa baabuurta iyo intaa wadata sooma amba geel xarda waa geel iyo dadkaa la socda waa lo'ley marka dee dadku wada lo'ley ma ahee bulsho inbaa ah marka lala hadlayo dee oo bulsho marka bulsho waa lo iyo intii wadata dee waa bulsho gabayee bay ku jirtaa marka geelidu ma soo geliye dee kuma jirno iyo reer magaalka toona xaggaasaa laga hadlaya waxaa kaloo jirta dee kolley ma wada hayo wixii waan kula helay buu qofka qoranaya waan kula helay kuumaan wadin buu ka wadaa laakiin waa maxay halkan ku waday waan la helay baynay noqonayn waan kula helay dee waa waxaad shiishaysay waa runaa marka haddana wuxuu leeyahay raalliga waan kula helay dee soo ibaad shiishayin dee raallidu waa maxay waabad igu dhufato waad igu tala gashay marka erayo waxaa jira horta kolley iyaguna laftoodu haddaan kugu dara hawsheeda leh aad iyo aad baad umahadsantahay cali waa hagaag intaasna waxaa ku dhan barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada hargeysa barnaamijkanna waxaa marti iigu ahaa cali maxamed xaruuri oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee daraasadaha ku sameeya af soomaaliga barnaamijkana intaasuu ku dhan yahay ee nabadgelyo ka maaran jeegii bangiga oo la jaar dahabalaas u kaydso lacagtaada mar kasta iyo meel kasta ku dhex isticmaal adeegyada somtel iyo idahab ku xidha akoonkaaga bangiga oo ka dhex maamulo lacagtaada u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas واو اسبوعك في عيسى صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط waxaad ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa